1977 Soomaaliya waxa ay dagaal la gashay dalka Itoobiya dagaalkaas oo ujeedadiisu ahayd in lagu xoreeyo dadka Soomaaliyeed ee dalka Itoobiya degan oo la magac baxay Soomaali galbeed dadka qaarkiina ay u yaqaaniin Ogaadeniya Soomaaliya dagaalkaasi waa ay ku jabtay kadib markii Itoobiya ay u soo gurmadeen dalka midowga Soviet iyo dalka Cuba siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka Soomaaliyana way isbedeshay iyadoo taliska Soomaaliya uu u janjeersaday dhanka reer galbeedka khasaarihii iyo jabkii ka soo gaaray dagaalkaasi waxa uu tiiraanyo ku dhaliyay dadka Soomaaliyeed rag ciidamada ka tirsanaya inqilaab isku da'ay laakiinse inqilaabkaasi waa uu fashilmay gesiga dhulkiisa busha uu horseeda geerida dishaay geedka habo u gabraaratada umaysigu ku dhunta dalabtada xumaanta geedkoodabo gesiga dhulkiisa busha uu horseeda geerida dishaay geedka habo u gabraaratada dagaalkii 77 oo dhex maray Mengistu iyo Maxamed Siyaad Barre ayuu inta noo yeeray wuxuu khibrad baad leedihiin tababar dheer baad leedihiin aqoon badan oo ciidan baad leedihiin ariga wuxuu yiri meeshaad 64kii ka dagaalantay oo ah doolo jahadiisa halkaas waa front baad ciidanka xoogga dalka iyo wixii bariis iyadoo lagu daro iyo jabhadda Soomaali Abow أنا قرأنا الصومالي أبو مركب والله يا قرآن حي أهل بعمله الصومالي أبو بعد ما ضحتها أيضا كان مركب الله يسكت الدرا وصدق قرآن يبوها سأسوى في الدقيقة النجيات في قد بيسا هالكاسوة من دوابي تلياني قبصة إثيوبيا